طبعا ujeedada shirkeena waa sida lagu tilmaamay ciwaankiisa oo ah jihaynta siyaasadda xukuumaddii la ansixiyey 16 bishii February waxaan runtii rajeynayaa maanta inay tahay maalintii ku habboonayd ee wasiiradu ay kari kareen in ay ka qayb qaataan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen qorshaha la damacsan yahay ee 5 sano soo inaan qabanno ugu horreyn waxaa maanta u fadhinaa sanadkii ugu horreeyey inaan jihayno aragtida guud ee siyaasadeed ay ku socon doonto xukuumadda Puntland 5 sano iyo qorshe howleedka sanadka u horreeyana hor yaalla iyadoo sanad walba aan sidaa u jejebin doono haddii ilaahayno iyadoo ay Puntland yeelanayso haddii ilaahayno haddana gacanta lagu hayo qorshe 5 sano oo soo socda laakiin sanad walba maadaama isbeddel uu imaan karo in isha lagu hayo ahmiyadaha ugu waaweyn ee la rabo halka inuu ka soo baxaa ka mid ah in golayaashu ay ku dhaqmaan raaca iyo xeer hoosaadka golaha wasiirada haddii golaha wasiiradu aysan ilaalin nidaamka iyo habraaca golaha waxaa adkaanaysa wada shaqaynta iyo waxa dadku laga filaayay noo egmadeen waxaan rajeynayaa inuu shirkan muddada lagu joogo si fiican laysu wadaagsan doono habraaca golaha wasiirada oo muddo badan laga soo shaqaynayay oo aan rajeynayo inuu ahaado midka golaha kala hagi doono xilligiisa waxaa kaloo isna hor yaala shirkan in lagu diyaariyo qorshaha 2019 waxyaabaha hubinta u leh iyo sida ay noqon doonto wasaarad walba waxyaabaha loo igmaday iyadoo laga duulayo siyaasadda guud ee xukuumaddu yeelan doonto iyo wasaarad walba waxa ay u igman tahay oo ah waxa ay u matalayso golaha xukuumadda iyadoo ugu adeegaysa dadka waxaa iyadana qodobka muhiimka ah xoojinta wada shaqaynta marka ugu dambaysa golaha kani wuxuu leeyahay mas-uuliye wadareed la doonayo inay ka soo baxdo hal shaqo oo qor ah taas oo ah ka shaqaynta ama u shaqaynta bulshada reer Puntland oo saldhigyadu noqonaya in amnigooda iyo deganaanshahooda laga shaqeeyo in kabacooda dhaqaale iyo horumarkooda laga shaqeeyo iyo in loo fidiyo adeegyada dowladnimo ay dadka xukuumaddan ay ka dhowrayaan ama xaq ay ugu leeyihiin waxaa iyadana meesha ka maqnaan doonin in si qoto dheer looga doodo siyaasadaha dhinaca dhaqaalaha amniga waddanka si loo abuuro jawi ballaaran oo ku saabsan maaraynta iyo horumarinta dalka waxaa kaloo iyadana aan ka marnayn shirkan inuu ka soo baxo habka dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland ay wada shaqayn doonaan iyadoo ay xadidi doonto dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ee xubinta ka nahay ay leedahay iyo dastuurka Puntland oo faraya inay ka mid tahay dowlad ka mid ah dowladaha federaalka ee Soomaaliya waxaan u baahanahay golaha xukuumadda iyo dhammaan dadka dowladda u shaqeeya inay mar walba dhowraan nidaamka sharciga ah ee awoodda u siiyey xilka ay hayaan inay ummadda ugu adeegaan haddii sharcigii lagu doorto aysan dhowrin aysan ku dhaqmin waxyaabaha dastuurku farayo waxay dhuminayaan xasaanadii ama wixii dadku igmaday waxaan rajeynaynaa xukuumaddan inay iska ilaalin doonto wax ka soo horjeeda dastuurka iyo shuruucda dalka oo aysan noqon qofka waxa ay la tahay inuu ku shaqeeyo waxaa runtii aad u baahan inaan aad ula fagurno muddadaan hadda joogno sida dastuurku uu u qabo wada shaqaynta hay-adaha dowladda oo runtii marka laga hadlayo federaalka weli qabyo ku jira marxaladaas qabyada ah sidee ula macaamili doonaa waa wax u baahan inaan aragti ka yeelano dalku wuxuu marayaa federaalku wuxuu ku dhisan yahay dastuur qabyo ah ku meel gaara
وحيابي هو وإنا إبنع وسقين تولي قبيلتا وحن قبيل كيهي وحن يرى فدراليس الحبكي النظام في فدرالي النوع وحان لها يصير الله وسقينه وحن وليدك سنين حيرة مالية دلقوا يالون دونه دينع فدرالك هي دينع كلامته وحاسي ومرقار وقلق وحيرر للدجيي وقت دلقوا وهانجري نظام الدولة دحية أو قرى runtii arrimahaas waa arrimaha u baahan in sida qotada dheer loo ogaado oo loo wada hadlo waxaan weli si cad loo qeexin nidaamyada waaweyn ee dastuur qorshahiisu uu dib u riixay ugu horeyso waxyaabaha la dhammaystirayo habka awood qaybsiga habka khayraadka loo qaybsanayo habka doorashooyinku dalku noqon doonaan habka maamul daadejintiiyu sida uu noqon doono waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba weli qabyarka ah runtii degdega dadka soomaalidu ay leeyihiin iyo caatifadda dhaqankeena ku salaysan oo in la kala boodiyo in laisku soo booda ah dhibaato badan ayaa ugu jirta dowladnimada waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay wixii ka dambeeyey 2012 ama 2006 sidii dowladda federaalku allahu naxariista cabdullaahi muddadii u degay magaalada muqdisho waxaa soo gabanayay habka wada shaqaynta dowladdu maalmahan ka dambeysana horkac baa jiray laakiin dhaliilo badan baa weli ka taagan oo ugu horeyso faham la-aanta iyo in cid badana weli afkana ka ogolaata inaysan ogoleyn nidaamka federaalka ah inay dhaqan geliso dowladda puntland waxay u taagan tahay midnimada soomaaliya iyo ku dhaqanka mabaadi'da federaalka ee dowladda soomaaliya ay qaadatay oo u baahan inaan anagu dhowrno mar walbana aan ka hadlo waxaa iyadana meesha ka marnay oo xukuumaddaas adig u ah qabadkeeda haddii lahayno tayeynka hay-adaha dowladda oo ah halkudhigga ay xukuumaddan leedahay oo ay ka rajeynayaan dadka ayna ahayd midii ay ku doorteen aragtiyaha ugu badan oo ah in tayeynta ee hay-adaha dowladdu ay ahaato mid meesha ku jirta inta badanna wasiirada halka jooga xoogooda lagu soo xelay iyadoo duruufaha mar walba sidii la dhamaysantahay waxaan la dhammaystiri doonaa dhammaan xeerarka iyo siyaasadaha muhiimka ah dhinaca tayeynta shaqaalaha si ay u dhammaystirnaan adeegyada muhiimka ah oo siinta hay-adaha dowladda iyo dabagalka qoshahooda xukuumaddan si tayada kor loogu qaado waxaa ka mid ah haddii ilaahay ka dhigo in wasaaradaha loo dhammaystiro dhammaan shuruucda iyo siyaasadaha ay ku shaqayn doonaan oo golaha xukuumaddu ka soo bixi doono wixii waxaa ka dambeeyana xukuumaddu ay wasaarad kasta wixii u imatay iyadu ay yeelan doonto waxaan aada ugu dadaalaynaa haddii ilaahay ka dhigo dowladdan inaysan noqon dowlad sida marar badan lagu celceliyo madax ka nool ah waxaan rabnaa dowlad ay hogaaminayaan hay-adaha dastuuriga ah xuquuqda iyo waajibaadka wasaaradaha leeyihin ay gutaan wasiirka ayaa mas-uul uga ah wasaaradda arrimaha siyaasadda iyo dhaqangelinta shuruucda dalka waxaan aada iyo aada ugu dadaali doonaa inay noqdaan wasaaraduhu meesha hagi doona horumarinta dhaqaalaha sarreynta sharciga ka shaqaynta amniga iyo adeegidda bulshada iyadoo wasaarad walba waxaa loo egmaday ay qaban doonto sidoo kaleetana la qaban doonto wasaaradaha kaleeta ee jaalka la-ah walaalaha la-ah si ay u gutaan waajibkooda guud iyagoo ixtiraamaya dhammaan xawaaliintii xeerarka u dhexeeya ahamiyadda wada shaqaynta hay-adaha dowladdu dhammaystirka kala qeexidda shaqooyinka hay-adaha dowladdu waa qodob muhiim ah wada shaqaynta hay-adaha iyo isku shaqada dhow si isu dheelitir loo helo waxaa jira wasaarado badan oo shaqadooda isu dhowdhowdahay sida matalan wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha bulshada oo bulshada u wada adeegaya waxaa dhici karta shaqooyinkooda inay meelo isaga ekaadaan laakiin sharciga iyo xeer nidaamyaha xukuumadda iyo wasaaraduhu waxay kala qeexi doonaan wasaarad walba iyo xuduudaha shaqo waxaan rajaynayaa isqaqabs ku saabsan dhinaca shaqada inuusan kuma soo noqon xukuumadda dhexdeeda oo qof walba uu ilaaliyo xeer waa dhici kartaa dadku markay shaqada ku jiraan inay xeerarka hor oolin ama aysan aada ugu camal falin
haddii qalad dhacar waxaa la rabaa qofku inuu xeerka iyo nidaamka jira ugu hoggaansamo haddii ilaahay waxyaabaha runtii siyaasaddan dowladda ka soo bixi doona qorshaheedana saldhig u noqon doona waxaa saldhig u ah golaha wakiiladu 16 February waxay ansixiyeen qorshe siyaasadeed oo aan u soo gudbiyey oo runtii aan rabno inuu ka dhasho qorshaha dowladda ee sanadka qorshaha siyaasadeed wuxuu ku salaysnaa 8 yool oo saldhig u ahaa aragtida siyaasadeed ee xukuumadda laga rajeynayo ee bulshada rabto inay ka rabtaan waxaan qorshaha dowladda ee sanadkan ka soo bixi doona qorsho saldhigiisu yahay 8daas yool intii suuragal ah wixii ka dhimanna ay ku dari doonto iyagoo wasaaradaha baahiyaha iyo awoodaha ay haystaan xadidi doona 8daas yool waxaa ugu horeeya hirgelinta isbeddel siyaasadeed iyo tayeynta hay-adaha dowladda tayeynta hay-adaha dowladda markaan leenahay waxa waaye wax kasta oo taya oo suuragal ah oo ku kordhi kara hadday tahay nidaamka shaqo hadday tahay agabka shaqo hadday tahay xeerarka iyo nidaamyada shaqo intaba waxay noqon doonaan in tayeeyo wixii suuragal ah oo awoodda dowladdu ay ku masaamixayso dib u habaynta amniga oo runtii ah meesha ugu weyn oo dowladnimada saldhig u ah inkastoo dalkeenu nabdoon yahay dadkeeduna ay yihiin dad nabadda jecel haddana hay-adaha dowladda habac badan baa ku jira oo ugu horeyso xagga tirakoobka xagga tababarada iyo xagga agabka ay ku howlgeli lahayd intaba waxaa ka jira qaliilo dowladda Puntland iyadoo la kaashan doonta wadamada daneeya dalka Soomaaliya ee jecel horumarkiisa waxaan rajaynaynaa inaan tayada ciidamadeena iyo laamaha amniga dhammaanba aan kor u qaadno ugu horeysa marka aan ka hadlayna laamaha amniga waxaa ugu muhiimsan iyana soo geli doona qaybo badan oo la shaqeeya amniga dib u habaynta nidaamka maaliyadda iyo kobcinta dhaqaalaha runtii dhaqaaluhu waa lafdhabarta maamul kasta urur kasta oo nololeed oo jira haddii dhaqaalaheenu uu kabacsanayn waxaa adkaan doona in maaliyaddii loo baahnaa la helo waxaan u baahannahay dhaqaalaha inaan kobcinno shaqooyin abuurno ganacsiga iyo dalka uu noqdo dal wax soo saar leh oo kobciisu dhaqaalo fiican yihiin isla markaasna canshuuraha dad ku waajiba la ururiyo si wanaagsanna loo maareeyo tayeynta ay adeegyada bulshada intii suuragala inta hadda la bixiyo oo ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha oo ay ku xigta adeegyada kaleeta ee lagama maarmaanka nolosha u ah oo dhinaca korontada iyo jidadka iyo wixii la halmaala wixii bulshada u aqrin taabagelinta garsoor iyo xaqiijinta sarreynta sharciga waa qodob muhiim u ah xukuumaddeena oo runtii ay awood gaara siin doonto waana waxaan isleeyahay oo meelaha u dibidhacsan muddadii 20 sano ahayd ee dowladda Puntland jirtay meelaha aan ka arkay dib u dhac weyn inuu ka jiro waxaa ka mid ah dhinaca hay-adaha garsoor oo aan isleeyahay wixii ay mudnaayeen lagama qaban marka waxaan rajaynayaa in ay yoolkaasi uu noqdo yool hortobin leh oo aad isha loogu hayo dhammaanna laga wada qayb qaato haddaan cadaaladdeena iyo garsoorkeenu uun horumarsanayn waxaa aada u adkaan doonta in dowladnimadeenu ay yeelato tiirar adag ay ku waari karto muddo dheer daryeelka deegaanka iyo xakamaynta saamaynta isbedelada cimiladu leedahay waxaad ogtihiin dalkeena abaaro fara badan ayaa si joogta ah u soo noqnoqday waxaana saldhig u ah isbedelka cimilada ee dhacaya midka guud ee adduunyada aan la qabno iyo midka gaarka ee deegaanadeena oo annagu aan sababnay oo runtii aad dartii iyo waxyaabihii abuurayay cimilada wanaaggeeda ee dabalgooyn lagu hayo waxaa runtii abiil halka ugu diraya oo khatar guddi waxaan magacaabnay u istaaga abaaraha waxaan filayaa oo aan intaan ka warqabo shaqooyin badan bay qabteen waxaan rajaynayaa in si fiican looga fiirsado oo gala aan jirin aada loo taabsan
laakiin waxaan rajaynayaa sida hadda xogta aan ku maqlayo ama saadaashu ay tahay abaarta hadda jirta waxay u baahan tahay diyaar garow xoog leh oo hore la iclaamiyo marka waan rajaynayaa in madaxweynaha ku-xigeenku arrintaas hogaaminaya dhinaca abaarta diyaar garowgeeda iyo qayladaanteeda in si wanaagsan waqti loo geliyo si dadkeena ugu gurmad karno xilliga horumarinta dhalinyarada waa qodob muhiim u ah dowladda oo ah dowlad dhalinyaro ah boqolkiiba 70 iyo dayna ka badnayn dadka reer Puntland waa dad dhalinyaro ah oo runtii marxaladihii ugu adkaa maraya hadday tahay marxaladii barbaarinta iyo hadday tahay marxaladii nolosha wax ku soo kordhin lahaa ama uu ahaan lahaa qof wax soo saar waxaa aad u soo badanaya dhalinyaro badan oo reer Puntland oo markii duruufo adkaadeen dhaqamo fara badan yimid kufsi iyo tacadiye kaleeto gabdhihii loo geysanayo muqaadaraadkii oo soo badanayo dhalinyaradii oo tahriibaysa iyo waxyaabo badan oo runtii saameyn ku yeelan doona nolosha dadkan waxaa iyadana saameyn weyn u leh dhalinyaro fara badan oo dowladaha dariska nagala ah kasoo qaxaya ama kasoo barakacaya oo deegaanadeena culaysyo badan soo saaraya kuwaasoo saameyn ku yeelan kara habnololeedka iyo habka dhaqan dhaqaale ee dadkeena u noolaan jiray waxay u baahan tahay iyadana arrintaas in wax la qabto waxaa qodobka ugu dambeeya ah dhinaca horumarinta arrimaha haweenka oo runtii ahmiyad gaara noole maadaama ay lafdhabarteena yihiin muddooyinkii u dambeeyana eedo fara badan aan runtii ay mudnayn loo geysanaya hadday ahaan lahayd dhinaca matalaada siyaasadda iyo go-aanka gaaridda mustaqbalkooda iyo mustaqbalka ummadda iyo hadday ahaan lahayd dhinacyada kaleeto ay tabayaan waxaan rajaynayaa in arrimaha haweenka waqti badan aan gelino si ay meeqaamka inooga mudan yihiin ay u soo gaaraan runtii hadalkaygu wuxuu ahaa uun hordhac iyo tusaaleyn iyo waxa aan doonayno inay shirkaan ka soo baxaan muddada 2 beri 3 beri oo wada joogi doonaa wada hadallada iyo doodahana wada dhex mari doonaan waxaan ugu dambeyn u rajaynayaa in uu shirkaan ilaahay kusoo gabagabeeyo si nabad ah oo ayna ka soo baxaan waxyaabo mira dhal ah oo iftiin u noqda mustaqbalka iyo shaqadeena wanaagsan.